aad baan ugu faraxsanahay inaan intaan oo dhalinyaro ah mas'uuliyiin ay ka soo qayb galeen shirkan ayagoo maxay haytaan muhiimadoodu ahayd inay encourage gareeyaan dhalinyaradan isa soo diyaarisay try crazy inay keenaan wax qurux badan oo maxay haytaan bulshadeena anfacaya sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo shirkadda Somtel iyo shirkadda Golis oo runtii ayagana shirkan la'aantood uusan dhaceen kaasoo marka adiga content-iga haysid dadkii haysid wixii dhan haysid laakiin waxay u baahan tahay khafladan kharshaad iyo saan uma qurux badnaateen haddaysan nagala qayb qaadanna runtii waxba nooma suurtoobeen wax badan bay noo fududeeyeen runtii waan ku faraxsanahay inay social activitiesska noocaan oo kaleeta ah ay encourage gareynayaan kana qayb qaadanayaan dhankooda waxay ku awoodi karaan waxaan kaleeto aan rabaa inaan si gooniya aan ugu mahad celiyo dhalinyarada halka intay timaaday soo jeedisay aragtiyadoodii ideaskoodii fikradahoodii ganacsigoodii ayagoo muhiimadeedu ahayd inay soo bandhigaan waxa ay hayaan isla markaana ay waxa ay u soo bandhigaan dadka cid kasta oo ka caawin karta everyone dadka ka caawinaya investorska kaliya maaha laakiin qofka dhageysanaya fikradan encourage gareynaya dhalinyaradan qofka intuu halka yimaaday try gareynaya inuu siiyo ideas maxay haytaan panelskan kasoo qayb galay senior ideas iyo waxyaabo ay qortaan oo anfacaya noloshooda runtii qof walba oo inaga mid ah wuu caawiyay we have to be feel proud inaan ka qayb qaadanay waxa kale muhiim ah waxa weeye aan rabo inaan dhalinyaradaas gooniyo kula hadlo oo aan dhaho life is a choice nolosha waa go'aan adiga leedahay waxaa jirta maxay haytaan khudbad uu jeediyay Obama hadalkiis waxa ku jiray waxa kamid ahaa wuxuu dhahay waan ognahay dawladda maanta innovationka yani nolosha kullu misa kharashaadkeeda ugu badan iyo juhdigeeda ugu badan inay tahay nolosha dawladda Britole maamuli doonta adduunka innovationka hal abuurka runtii waxaan u noolnahay inaga dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyaabo inoo abuuray oo hibada inoo siiyay waxa weeye inaan noqono dad creative dad wax soo saari kara Allah subxaanahu wa ta'ala aqli weyn siiyay aqli wuxuu inoo siiyay inaan ka faa'iideysano inaan noqono dad creative wax soo saara wax keena qofka kaliya ayana adduunka wuxuu sameyn karaa inuu yani wax noqdo be something adduunka wax ku soo kordhiyo bulshadiisa bareed ku ahaato qof markasta la sheego magaciisa la sheego ahaato marka waxaan rajaynayaa dhalinyarada waxyaabaha kale muhiimka ah waxa weeyaan si aad u noqotid waxa rabtid everyone wuxuu rabaa inuu noqdo someone maxaytaane shakhsiya cadiima kulligeen waa wada rabnaa laakiin dawayga ku noqonaysid you should be inaad tahay wada garanaysid waa inaad tahay waxa halkeenaya ku caawinaya waxa weeyaan habitska everyday life habitskaaga sameynaysid waxa ku caawinaysaa tomorrow waxa noqon lahayd hadaa aroortii inta soo kacdid noloshaada ku bilowday inaad social media saa u wadid dad kale maagistooda iyo political hebel ba hadalka xal soo jeediyo hebel ba hadalka hadal dhahayo maanta aad post gareynaysid adiga share gareynaysid maxay haytaan cuntid dana saaxiibadaha asxaabta inta u degtid la sheekaysatid guriga ku soo noqotid seexatid wax alla waxa noqonaysa tomorrow ma jirto you gonna be like that it's a choice aad doorato adiga weeye choice ka mid ka duwan baan dooran kartaa oo igu jirtay waxa kamid ahaa waxaan soo dhaweynaynaa runtii everyone oo raba inuu barnaamijkan ka qayb qaato barnaamijkan waa social activity u furan socialka wax oo hay'ad si gooniyo u wadato barnaamij mar imaanaya ma jirto inaga weeye wax inoo yaala oo waxa inaga leenahay this inaga leh so waxa kaliya aan ku muujin karno waxaynu nahay so waxyaabaha muhiimka ah waxa weeyaan dhalinyaradan IT-ga barata iyo dhalinyarada in kasta fikir ganacsi haya wana la soo xiriiri kara runtii waa u furanahay anywhere anytime aniga hadda wuu iman karaa qofka u baahan I can reach him wax kasta qof kasta rabo inuu ka qayb qaato anaga soo dhaweynaynaa cid kale oo fikir rabta inay ka qayb qaato soo dhaweynaynaa cid kale oo dhalinyarada encouragementigooda ama kharash inay ku bixiso qaato soo dhaweynaynaa everyone will know furan yahay